ma doonaysaa timo dhaadheer dhabarka dhaafo dhulkana gaaro waa sida xaqiiqda ah hadda kaftan kuma jira insha Allah alaabtan haddii aad timahaadu isticmaashid intay kuu dheeraadaan dhabarka kuu dhaafaan dhulkana kuu gaarayaan teeda kale waxay leedahay jilciso oo timaha ayay jilcisaa waxay leedahay inay joojiso daadashada timaha gabdhaha jilcisada ku wareeray alaabtan ayaa u baahantiin waxay kaleetay leedahay timaha inay madoobayso waxay kaleetay leedahay timaha inay ka dhigto timo adag fadlan waxaa idinka codsanayaa haddii aad tahay markii ugu horreysay aad soo booqatid janalka Karin iyo Qurxin hamoogaan insha Allah wuxuuna soo kordhiyay waxyaabo kaleeto oo aad ka heli doontiin waxaa kamid ah sida ujeediin keegan hadda hortiina ka muuqda waxaan sameynaa keegaga sida happy birthday bye da welcome ta aroosyada wax walba sidaan u sameeyaa inaan idin la wadaago maadaama aan mar walba order bixiyo hadda sida ujeedaan keegan hortiina ka muuqda wuxuu ahaa happy birthday yani asoo 10 kiilo 2 kiilo 3 kiilo sida loo sameeyo sida loo cabiraba insha Allah marka maxaa idin insha Allah hadii aad daneynaysid sida loo sameeyo keegaga waan isku wadeena isqurxinta iyo muxuu ahaantood macmacaanka maadaama uu janalkan laba magac u haasto labadaas magac oo ah Karin iyo Qurxin labadaba wuu isla qaadanaya marka insha Allah haduu Ilaahay noo suuro galiyo waxaan rabaa inaan idin la wadaagan hada ujeedin wuxuu ahaa happy birthday waa waxyaalaha kartoonada ilmaha ay jecelin ee coco melon ayuu ahaa السلام عليكم هذا waxaa bilaabnayna videogeena insha Allah ugu talagalna timaha bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu dhamaan waa idin salaamo inta ku xiran janalkan Karin Qurxin maanta maxay idin la wadaagaysaa waxa idin la wadaagayaa alaab timaha hadii ay timahaada yani cadaan uu soo galay ciradoo kaleeto hadii ay timahaada timo adag ay ahaayeen hadii ay timahaada ku bixi waayeen hadii ay ka siimayeen sirta timaha loo isticmaalo ma sha Allah gabdho badanna way ka faa'iideen sida ay gabdhahaas uga faa'iideen inay inta kale uga faa'iideen ayaan rajeynayaa insha Allah waxa halkaas ku haysta ujeedi flaxseed iyo dhagayare waa wada taqaaniin iyo liinta ani mar walba sheeyaasha aan isticmaala kama reebana way ku jirtaa sababtoo liinta waxa ku jira vitamin C waxaan leedahay agoolka mar walba ay madaxa ka ilaalisaa maadaama anaga aan saliid culus isticmaalo sida olive ta macsarada kuwalaha soo kaleeto waxay keentaa agool iyo maadaama anaga Soomaali aan madaxeena mar walba waxa ku badan inaan saliid badan marino saliid badan ayadana waxay keentaa agool saliidii iyo qoyaankii ayaa isqabsanay ama madax markuu dhiido kadib wuxuu dhalinayaa toxob marka liinta waxay kala dagaalamaysaa toxobtaas flaxseed maxay siinaysaa inay jilciso dhageeraha waxay siinaysaa madow inay ka dhigto timaha iyo inay hadoo cir ku soo galayso kaleeto iyo ka istaajisa ee ka ilaaliso iyo inay timahaada ka dhigto timo birbir qaayo kaleeto oo shining la ayagana waxayna leeyihiin ma sha Allah fitamiin aad iyo aad ugu badan dhowr jeerna waa ka soo hadlay fitamiinskiisa hadda maraba inaa waqtiga iskaga lumiyo insha Allah laakiin waxaa idin ka codsanayaa please janalka Karin iyo Qurxin ee YouTube taga Karin iyo Qurxin subscribe soo saara like ta siiya Karin iyo Qurxin waxay idin soo kordhay sida ujeedin waxyaalaha macmacaanka isqurxinta cookies-ka ma fahamteen marka insha Allah si aad gabar walba ee yani iiga faa'iido uga barato sida loo wax walba waxay leeyihiin yani qiyaas iska sameey ma aha yani anaga waxaan soo bina oo dharaa bixinaa happy birthday-da in aroosyada wax ka sidaan u soo bina insha Allah aan rabaa inaan idin la wadaago hadii ay macquul noqoto biidnillah alkarim laakiin videogan aan ka arkay insha Allah daneyntiisa iyo sidii aad daneynaysiin marka biyo ayaan soo qaatay hal galaas oo biyo digsi ayaan ku soo shubtay liinta ayaan kala gooy isaga dhexrida dhagayaraha ayaan ku soo shubtay 3 macalqo oo flaxseed ayaan ku daray 3 macalqo oo flaxseed ka ahaad markii aan ku daray kadibna maxaan soo binayaa dabka ayaan saarayaa dabka markii aan saar maxaa hadda ka soo baxayo jeel ka soo baxay ku dhatimahaada ku massage garaysan sidoo ku soo baxada hada waa arki doontaan insha Allah dabka ayaan soo saaray dabka markii aan soo saarna wuu iska karay yani si fiican inuu u karo waa oon dhagayarahana kala baxno flaxseedka jeelka kala baxno liinta yani wax dhexda uga jiro wax gudaha uga jiro dhan aan ka baxsano alaabteen hada waa ujeeda sidaas ay u soo burinaysaa hada markaa maxay u dhowdahay in laga damiyo ee diyaar u noqotay يعني وأجد حوق أي أبورنسا جيل فربضنا وسوسرت هذا وان كسو دمينا مركو سوق وباسكو نقونينا هذا alaabteeni waa kana waa soo damiyay xoogaa yar kuleel ka tirada badnaa uu ka soo baxay leentii yani safi yani u bislaatay yani maxaarna alaabta marka madaxaada ku masaajis uu ku qabooba markuu ku qaboobo kaleeto ayaa isticmaalaysa asagoo kale ina madaxa isaga shubtid
madaxa yuusan ku go-in insha allah. marka alaabteeni waa ujeeda sidaas ayay jeel u tahay way jiitamaysa. marka anaga muhiimada maxaan ka rabnaa jeelkeena. jeelkaan kala bixinaa marka waan ka miiranaynaa. markii aan ka miirto yacni dib ayaan wax uga darso doonaa insha allah. gadaal ayaa ka arki doontaan taasna. waan ka miiranayaa shabaq ayaan soo qaato qashinka ah isaga reebayo kadibna waan ku shubay. markii aan ku shubana maxaa iiga soo baxayo qashinkuu iga hirayaa jeelkana waan ka baxsanaya. alaabtaas intaasoo qof ayuu u marsamaysaa 3-4 qof way u marsamaysaa sababta waa wax yaroo qoyan madaxaadoo shanlaysan oo kuu hagaagsan. yacni markii intaadan dhaqin ka hor ayaa marinaysaa waad ku masaaj garaynaysaa waa ku duuduubanaysaa wax yaroo kula huuris ayaa gashanaysaa ama sida booc oo kale ama koofiyadaha la gashto markii timaha wax la marsan ama la qubaysana oo kaleento. hadda waa ku daysanaysaa aan ku dhahay alaabtaas 1 saac 2 saac 3 saac ugu yaraan 30 saacadood hadday kuu marsanaato maasha allah. alaabtan hadda alaab caadi oo laga sheekeyn kara maaha. madaxaada mar walba markii aad shanleynaysid maxaa dareemaysaa inuusan timaha kaaga istaagaynin. ilmaha haddii aa u mari sidoo kaleeto inaysan timaha aysan kaa diidaynin shanlada aysan qabsanaynin inay daadashadii kaa istaajisay inay madoobeys. dad badanaa waxay isticmaalayaan 1 biri ama 2 biri kadib ay dhahaan maba arkin natiijadii. saas looma baahno. waxa waqti badan isticmaal natiijo 1 biri iyo 2 biri laguma arko. ma fahamteen inta iisoo mahad celisa wallaahi inaan halkan lagu soo koobi karin. yacni inta xumaanta jecel yacni iska daaya laakiin inta soo mahad celisa ee nambarkayga xitaa ayagu wax iga gadanayn inay iisoo raaday dhaheen abaal aan kaaga haynaa halkan laguma soo koobi karo. marka maxaan ku darsanayaa subag. gabdho badan waa u sheegay gabdho subaga ha moogaaninaha. subaga ku darsanaysa waa iska dhaqaysa woo shiirayees laakiin marka hore ku darso subag yar ku darso kadibna madaxaada ku huuri kadibna iska dhaq kadibna saliidahaada caadiga oo kaleeta ayaa iska marsanaysaa haddii aad saliid caadi haystid. haddii aad tahay qof hanaansan iga ka doqolan saliidaha hanaansan oo kale madaxaada iska marsanaysaa. timahaada hadda lagama sheekeyn karo xariir camal way iska daba dhacayaan aan ku dhahay way iska daba dhacayaan. waa xaqiiq iyo sida reality aniga aan ku arko kaleeto timahaada inay dheeraadaan dhulka dhaafaan haye yaa kula qaadaa dariska yaa marka insha allah caawinaada dalbanaysaa ku dhahay timahaada dhirirkooda daraadiis. marka gabdhow timaha maxay rabaan daryeel iyo in la nafaqeeyo mana idinka jiro yacni wax gasac ku jiro wax jikadiina yaalo war dhagayarahaas haylka waxaas jikadiina yaalo dhan mid maalin isku darsanaysaan sida aan idin barnay oo aad aragteen wax badan oo jikadiina yaalo ayaa korkiina iyo timihiina ku hagaagsan karteen. nafaqo fara badan oo ka helaya timahana ay ku baxayaan gabdho badan ee guula ka gaareen annagana ee timaha inoogu baxeen. marka maxaa idin leeyahay biliis haddii ay tahay markuu horeysa soo booqad jankan qunxan ha moogaaninaha alaabtan iyo subagaan yarna ha moogaaninaha insha allah wuu shiiraa iyo waxyaalahaasna iska dhaaftiin madaxiina ku masaaj gareeya iskana dhaqa insha allah saacad 2 saac 3 saac nus saac ku hayso intii markaas aad fursad u heli karta ayaa idin leeyahay insha allah. maxaa idin ka codsanayaa please inaad channelka Karin Qurxin YouTube subscribe saartaan beelka on ka dhigtaan u sii share gareysaan asxaabtiina si ay uga faa'iideystaan. ha noqonin baqayl noqo midka la wadaaga waxa adiga aad ka faa'iiday walaalkaada kaleeto. waxaan idinka tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala